كابانو مهلنا قينا إلى مالنتن نقسمي مالنتن تاريخ لا ما يركي عاصمة سيدات سنة كبعدي وحلكي ومدن واي وريتشنا يو أصيرو كلنا أسود وين إنسان قلت ديجانو عصب إيه ماير عصب إيه ماير كحجين عصب وحن مادام وقته وداهي مدحضة قرنكا magacyadooda waan ka cudur daaray wada sheego way waqti badan baa inaga lumaya golaha wasiirada inta inagala joogta oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha ayaan idin salaamaya wixii eedaabada ee ahayd inaynu kala horreysino magacyada iyadana sidaasaan markaa ku soo koobaya maayarkii hore ee caasimadda waan sagootiyayaa waxaa kaloo sagootiyayaa maayar ku-xigeenkii hore waxaan sidoo kale sagootiyayaa markii hore xeerku wuxuu odhanayay xildhibaanadii hore ee iyaguna 8 sano soo joogay golahan ayaan sagootiyayaa khayr baan ku sagootiyayaa cabdiraxmaan kama sagootiyayo golahan cusub uu ka mid yahay waanu nasiib badanahay in waayo aragnimadii cabdiraxmaan ay nala joogto halkaa waxaan cabdicasiis maayar ku-xigeenka oo dardaarmay u sheegayaa golahan aan hogaaminayaa ma noqonayo mid farfadho xumaantii iyo hadalladii hore oo kale marka ololaha lagu jira hadallo badan baa la yidhaahdaa annagu awogeyna waa ogyahay ilaahayna waa ogyahay cirdiga iyo sharafta cabdiraxmaan kamaanaan mid ahayn kuwii wax ka sheegay magaciisa xitaa maanaan soo hadal qaadin waxaanu dhaliili jirnay oo keliyaato uun qabyada ayuun baanu ka hadli jirnay waxaanan ummadda somalilan qof kastoo mas-uula marka la dhaliilayo ka codsan lahaa in lagu ekaado dhaliisha iyo toosinta oo aan loo gudbin cirdiga iyo sharafta qofka cabdiraxmaan golahan cusubi wuxuu siinayaa xurmada uu ku leeyahay inuu yahay maayarkii hore caasimadda wuxuu sidoo kale siinayaa inuu yahay xubin annaga naga mida waxaananu ku siinaynaa inuu yahay odaygii golaha yaga waxaanu sidoo kale cabdiraxmaan cimri uma hadhin oday reer Hargeysa inuu yahayna xurmada waa ku siinaynaa saddexdaa xurmo waa ka helayaa golahan insha allahu tacaala waa xaqiiqo ololihii waa dhammaaday shaqadiina waa bilaabantay hadalkayga maanta waxaan u hibeynayaa oo keliya shacabka jamhuuriyadda somalilan sababtuna waxa weeye shacabka waa run markii ololaha lagu jiray wax badan baanu u sheegnay sidii bay dhab noogu tahay wixiina waa la qabanayaa laakiin sidaa maqlayseen 2100 iyo jarjar baa shaqeeya waxay taasi markaa sheegaysaa in cashuurta la bixiyaana waxa weeye markay ugu imika ay tahay 35% inay soo xarooto markaad 35% cashuurta bixiso ee institutionka dawladda hoosena dad intaa leeg ay u shaqeeyaan hubaal waxa lacag badan inay ku baxayso mushaaraad oo markaa mashaariicdii la qaban lahaa ay yaraanayso sababtaa aawadeed baan doonayaa shacabka reer Hargeysa inaan toos ula hadlo haddaad doonayso in wax la qabto arrimo muhiim oo kugu xidhan baa jira arrimahaasaad ka soo baxaysaa insha allahu tacaala annaguna markii ololaha lagu jiray waxaanu ku ballan qaadnay in la ilaalin doono cashuurta lagaa qaado oo ay ku dhici doonto khasnada markay ka soo baxdana ay ka soo baxayso iyadoo wax lagu qabanayo waa ballan aanu hortaada ku qaadnay waa ballan aanu ilaahay hortiisa ku qaadnay waa dhaartii aanu marnay shacbiga waxa laga rabaa inaad cashuurta bixisaa laga rabaa waxa la doonayaa inaad wax ka bedesho habdhaqankaaga inaad caadad biyo ka canto oo wadada ku tuurto inaad jaad cunto oo curubta ka goosto qoryaha ku tuurto inaad haddii ilaahay idamkeeda leeyahay sigaar cabto oo baakidka wadada ku tuurto in haddaad suuli weydo wadada aad ku saxarooto
inaad xoolahaaga magaalada ku soo daysato arrimahaas oo dhan baa la doonayaa inaynu wax ka bedelo habdhaqanka qofku ilaa uu isbedelana Hargeysa isbedeli mayso waxaa la doonayaa haddaad gaari wadato inaad isbedesho si aad u kaxaynayso wadooyinka magaalada Hargeysa ku yaal waxaa jira waddo wiig kastaba hal qof ku dhinto haddaanad ogeyn maantaba ogow waxaanay taasi ka dhacaysaa mas-uuliyad darro qofka wadaha uu ku marayo waddo dad ay dhex degan yihiin xawaare aad u sarreeya oo aan loo ogolayn sharcigan aan u ogolayn marka mas-uuliyadda waa inaad qaadaa gaari kasta xilliga uu meesha u marayo waa inuu ku maraa taxadar iyo mas-uuliyad waa inuu ilaaliyaa sharciga wadooyinka iyo wadamarista insha allahu tacaala sidoo kale waxaa la doonayaa dhagaxa hortaada tuulaneed gurigaaga hor dhigatay inaad ka qaado gurigaaga hortiisa xaadho geedna ku beerto berigii hore Hargeysa waxaan jirtay labada guri ama labada sakood iska soo horjeeda waa la xaadi jiray waa la rushayn jiray dhirna waa lagu beeri jiray dhaqankii wanaagsan ee Hargeysa lahayd in la soo celiyo weeye dhagaxa intaan laga gurin maanta chance haysataa dhagaxaaga meel sii geyso Hargeysa ma dhaxoolayo quruxna naga dooni maysid hortaadana buuro dhagaxana dhigan maysid waxa laga rabaa inaad gurigaaga hor xaadho haddaad xaadi weydana sharci iyo xeer baa ku qabanaya sidoo kale haddaad tahay wado bas haddaad wado sixmadda baabuurta koobay keen arrinta basasku wadada bartankeedu qofka ku dajiyaa waa dhaqan xumo waa hab dhaqan xun inaad darawalow bedeshaa lagaa doonayaa annagana waajib baana saaran halkaan istaagileed baan ku calaamadinaynaa insha allahu tacaala meeshaa meel aan ahayn ma istaagi kartid qofna kuma dejin kartid qofna kama qaadi kartid intaan lagu dirin ee sharci lagugu dirin in awoodda sharci lagu adeegsan habdhaqankaaga wadow bedel meel ku habboon waddada ka bax halkaa ku habboon ku deji qofka haddii ilaahay yidhaahdo dad yahow reer Hargeysow dantaada guud ilaasho waa iskuulkaagiiyo ilaasho waa garoonkaagiiyo ilaasho waa masaajidkaagiiyo ilaasho waa malcaamadaadiiyo ilaasho waa dhakhtarkaagiiyo ilaasho waa halkaad degilayda ilaasho walaalayaalow qolada ganacsatada baan si gaar ah ula hadlayaa magaalada yar Hargeysa ka dhex ganacsataan ilaahayna wuxuu idinku siiyey boqolkiiba 25 baa ku nool ummadda Soomaaliland ku nool boqolkiiba 25 baa Hargeysa ku nool taa macnaheedu waxa weeye markaad ganacsado tahay waxaad u baahan tahay inaad ka dhex ganacsato magaalada Hargeysa markuu roobku daawo aad og tahay dadkaad ka ganacsato labada bridge way ka xidhmaan meel maraana way waayaan maalka alla ku siiyey sadaqa ku waajibtay si aad masaajidkaba u dhisto nala dhis hal bridge insha allahu tacaala bridge cusub ganacsadaha ugu horeeya qaata go-aanka geesinimada lana annaguna waa u ducaynaynaa ducada madaxnimadu waa kacdaa shacabka reer Hargeysana waa u ducaynayaan insha allahu tacaala shirkadda qaadatana waa u ducaynaynaa annaguna doorkaygaan ka qaadanaynaa iyo hayntayada iyo cashuurtaa soo bixisaan wixii halkaa ka gelaya waa ka qaadanaynaa haddaanad biriish awoodin ood ganacsato alla wax ku siiyey wadda nala dhis hadday waddada kugu adag tahay hal meeloo biyuhu taagayin drainagekii lagu samayn lahaa nagala qayb qaado insha allahu tacaala hadday intaasiba kugu adkaato hal iskuul dhis hadday kugu adkaato MCHR dhis haddii kalena khayrku waa kuu batay isbitaal weyn dhis dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland mangaar ula soo baxay war way doorateen meeshan ilaahay ka soo idinka ay keenay qabiiligu maydaan dooran xuduudaha qabiilkaas kiigu gudubteen daan walba way iga odayseen mas'uuliyadda weyn bay saarteen insha allahu tacaala anigoo matalaya 16 xildhibaan ee kale mas'uuliyadda aan saarteen waa gudanaynaa xildhibaan kasta cod buu helay codkiisii ayuu anigii igu sii codeeyay taa macnaheedu waxay tahay waxaan maayar ku ahay codkii Hargeysa oo dhan waxba ka maqnayn dhalinyarada Hargeysa ay xamar waxaad aragtay ka dhacayaan waad aragtay dhalinyarada oo dadaalaysa oo wadada qurxinaysa wadada rinjiyeynaysa wax ku diiday adigana ma jiro inaad magaaladaada qurxisato gacan baad naga helaysaa waanu ku taageeraynaa
ummaddana waanu u sheegaynaa waxaad qabatay ha sugin ee maanta kac ka fikir hal mashruuc oo bilicda Hargeysa wax ka taraya annaguna waxaanu ku ballan qaadaynaa inaanu ku siino gacan intii suuragala haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala markay ugu yar tahay 12 habeenimo markay gaadho shaqaalo kooban oo mushaar fiican qaadan ayaa wadada ku xaadha adigoo hurda 12 habeenimo habeenka khamiista soo kac wadada la xaad ciida kala gur wax weyn bay taraysaa insha allahu tacaala labada bridge ee magaalada Hargeysa haddii aad maanta marto ciida dul saaran waad ogtahay inaad ka qaaddo adigoo dhalinyarada Hargeysa sharaf bay ku tahay geesi baad noqon ummadaanu ku horkeenay inaad ummadaada wax gashatay baan u sheegi doonaa ha sugin dawladda hoosuna wax qabatay fadhiga ka kaco samaysa magaalada jeclad inaad ku noolaato doorka aan ku leenahay waa ka qaadanaa gacan waa kugu siinaynaa hawsha mutadawacnimada waayo waxaan doonaynaa inaan soo noolayno dadaaladii la samayn jiray ee iska wax u qabso Hargeysana waa ku dhisaynaa insha allahu tacaala Somaliland iyadoo isku duuban iyadana baaq baan u dirayaa magaaladani waxay noqotay caasimadii Jamhuuriyadda Somaliland markay noqotay caasimadii dastuurku sheegay meeqaam gaar ah bay yeelatay mudanayaasha baarlamaanka la doorto xeerkii caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland waa in la idinka helaa Hargeysa ama waxay noqonaysaa un magaalo dadkii ku noolaan jiray iskaga nool yihiin oo inta magaalooyin kale laga qabto laga qabanayo haddii kalena waxay noqonaysaa sida sharcigu dhigay caasimadii la wada lahaa ee Jamhuuriyadda Somaliland xeer baana taajidinayo qoraya xeerkaas waa inuu soo baxay insha allahu tacaala sidoo kale waa inuu jiraa qorshaha qaranka ee horumarinta caasimadda qarankani waa inuu ka yeeshaa qorshe cad caasimadan iyo isbedelkeeda annagana kaasaanu raacaynaa insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo shaqaalaha dawladda hoose waan idiin ducaynayaa maantay ka bilaabmaysaa haddaa isleedihiin qoladan cusub ee imanaysa waa laydinku soo diray qabiilkaaga ma naqaano qoladaadana ma naqaano aqoontaada ma naqaano berri baynu isbaranaynaa insha allahu tacaala dadaalkaaga aqoontaada daacadnimadaada jacaylkaad Hargeysa u hayso waayo aragnimadii inta dawladda hoose joogtay ayaa iskeen baraysa insha allahu tacaala isbedelka institutionkana adigu kugu xidhay insha allah waynu wada dhaqaaqaynaa dhaqaaqa laynaga fulayaynu wada dhaqaaqaynaa insha allahu tacaala ha hadhin adigu ha isreebin adigu ha is-eryin adigu shaambad ha isku dhufan qof wanaagsan baad to adoo wanaagsan baad dhalatay magaaladaadaad u shaqaysay waa lagugu sharfayaa waxaad xaq u leedina waad ku helaysaa laakiin dhaqaaqii baa kugu xidhan marka waa inaad nala dhaqaaqdaa insha allahu tacaala Hargeysa un baan kelmad odhanayaa iyana Hargeysa waadna dooratay 17 xildhibaan wax badan bay kugu yidhaahdeen waan qabanaynaa maanta laga bilaabo Hargeysa xaggayga soo eegaysaa waa ognahay laakiin waad nasiib badan tahay oo golahani maalmihii tagay ka fadhigii waa u furan yahay shirar joogtaa buu ku jiray waxaan golaha ugu mahadnaqayaa ragga sharafta leh karaamada leh layla doortay inay maalmo u fadhiyeen inaanaan noqon qaar intay kuraasta berri fadhiistaan ku dul fikira qorshihii berri laga bilaabo lagu shaqayn lahaa inay u fikireen oo ay fadhiisteen oo ay rogrogeen oo ay dhinac walba ka eegeen oo ay kii hore eegeen oo ay maalmaha waktigana ilaaliyeen intii loogu talagalay waktigana ay bixiyeen waxay kuu sheegaysaa inaad heshay gole deegaan oo raba inuu isbedelkeenu kuu shaqeeyo raggaa qiimaha leh indhaha Hargeysa intaba mas-uuliyad gaara aniga shakhsiyan iga saaran isku wadka xildhibaanada iyo taladu inay tahay shura anigaa layga rabaa shacabka reer Hargeysana insha allahu tacaala indhahooda wax ka farxiya arki doonaan laakiin inta aanad samri karahayn eed sugi karahayn
iska sii dheh waxaad odhanayso laakiin maalin maalmaha ka mida waxaa hortaada iman doonta in lagu shaqeeyo shaqo wanaagsan lagu qabtay insha allahu tacaala dadka reer Hargeysa waan ogahay maanta marka nala caleemo saaro inaad doonaysaan inaad marti qaadaan na sharaftaan gud baa tihiin waan ogahay way idinka geysan tahay hawsha na sugaysa ogtiin ee naga filaysaan baa badan markii la iscasuumana saacado badan baa luma idina waa ogtiin annagoo saacadaha u turayna annagoo saboolka eegayna waxaanu go'aansanay waa go'aan golaha ka yimi inaanu idin aana casuumadahaasi waa idinka geysayn dadka dibadda ku maqan iyo kuwa gudaha joogana waxaan u sheegayaa xafladna loogu dabaaldegayo waxbaa samaynina lacagta yar ee xafladda ku samaynaysaan waa soo diri kartaan annaguna insha allahu tacaala meeshay ku baxday ayaanu idinla soo wadaagi doonaa insha allahu tacaala yaa laga dabaaldegaa yaa se loo dabaaldegaa meeshan cid guulaysatayna ma jirto cid laga guulaystayna ma jirto Hargeysa way wada guulaysatay waana taa mid ah midnimada Hargeysa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu doorkiisa ka qaatay ee uga mahadnaqayo cid gaar ugu dabaaldegi kartaa ma jirto waa la wada leeyahay waa la wada ilaashanaya maayarkeedii hore oo maanta sagootinayna waa ku soo dhaweynaa goluhooda u yahay markay sidaa tahay insha allahu tacaala waxaynu dabaaldegaynaa inagoo abaal marina kuwa dhulka inoo xaadha ayaynu dabaaldegi doonaa insha allahu tacaala degmooyinka Hargeysa waa ismaqlayseen anigu idinmaan sheegin nin waliba cashuurta wuxuu ku soo daray waa la sheegay sidaa markay tahay la isu dabranaan maayo tartan baa la gelayaa degmada waliba cashuurtaada bixi dabeetana cashuurtaada wax lagugu qaban doonaa insha allahu tacaala waayo dee haddii sida la isugu sii huursanaado adeer annaga laftigeygay lawa nala dhalinaya waa nala caayaya yaa wax noo dhiibtaydu waa saxda oo ku saxay cashuurta iska soo bixiya degmo waleybana marka shaqaalahaaga maamulka lagu soo daadajiyo ee guddigii horumarinta degmada oo dadka ka socda lagu sameeyo adigu dhaqaaq cidna ha sugin isbedel degmadaada ka keen Hargeysana waa halkan kaga baxayo wasiiradu waa daaleen raalli ha layga ahaado Hargeysa ma soconayso inay noqoto xafiis dawlad hooseed oo maamulka oo dhami ku soo ururo isku bixin mayso kuna horumar mayso sideed degmada maamulka waa loo daadajin insha allahu tacaala dabeetana way tartamayaan sideed dawlad hoosaad oo yar bay noqonayaan degmadii wax qabsato waa la abaal marinaya shaqaaleeda la abaal marinaya horumar baa lagu abaal marinaya daadar horumarka ka qayb ah insha Allah taala inta marka laga yimaado war waxaan idin ka codsanaa ducada wala la soo duceeyo dikii Hargeysa qurux badan rabow ducada soo raaci nigi Hargeysa qurux badan rabow ducada soo raaci إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبريا لحية طبعا كانين أو سلا تدوي طبعا كيغاس أو سلا أو مغيسان أو وحي كفانا هيا وإنت عبد الرحمن شيكتي أما إلا قبل لما لا بكت شغن كريا إني هلكا ماركا إذا كوي مادان إن شاء الله تعالى دي لهنا هلكا وقودا بيسا وحن كبحيا عبد الرحمن يقوليه سيوري ما يركو حيانكو أنه نقول ما ينقار halkaa dhigteen iyo wanaagga sheegteen inta qabateen waa quweyneynaa insha Allah waa si hagaajinaynaa wixii inaga qabiyo waqtigu ka soo gaarina waa nala dhameystiraysaa oo nala joogtaa insha Allah taala halka ugu dambaysa gabagabo Hargeysa waa la midoobo qabiilka la iska daayo xaafad ha dhamaato
إنه رأي أرجيسا وإنه جمعة إسقبسنا أرجيسنا وبدلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.